Bismillahirrahmanirrahiim daawadayaal ku soo dhawaada wararka habeenimo ee xogta ciyaaraha qodobada aad kula soo doontaan caawana waxaa ka mid ah Cristiano Ronaldo oo kooxda Juventus mas'uuliyiinta ugu sarreysa ugu yeeray inay la soo saxiixdaan Sergio Ramos oo haatan baxsadka kooxda Real Madrid. Macalinka kooxda Paris Saint-Germain Thomas Tuchel oo heshiis u saxiixay kooxdiisa uu ku sii joogayo ilaa 21 Real Madrid oo dadaal ugu jirta la soo wareegitaanka beddelka Sergio Ramos. Heshiiska Eden Hazard ugu biirayo Real Madrid oo waqti loo qabtay iyada oo lacagta ay Chelsea ku doonaysana uu haatan muran ka taagan yahay. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan daawadayaal idinkugu soo gudbin doonaa xogta ciyaaraha caawa mar kale soo dhawaada. Sida ay haatan ku waramayso majalada AS ee fadhigeedu yahay magaalada Madrid, Cristiano Ronaldo ayaa madaxda ugu sarreysa kooxdiisa Juventus gaar ahaan qoyska iska leh mulkiyadda kooxda ee Angeli family weydiisay in ay qiimeeyaan Ramos oo ay dadaal ku sameeyaan sidii ay ula soo saxiixan lahaayeen. Labada xidig ayaa labaduba waxa ay furo u ahaayeen taariikhda Real Madrid ee sanadihii dambe aadka u sarreysay maadaama ay 5 sano gudaheed ku hogaamiyeen 4 Champions League sidoo kalena ay joogteeyeen xiriirka wanaagsan ee qolka labiska kooxda. Juventus ayaa wax kasta u sameysay sidii ay ugu guuleysan lahayd Champions League waxaana macquul ah la leeyahay inay si dhab ah u qiimeyn doonaan Sergio Ramos haddii uu rumoobo wararka sheegaya in uu ka baxayo kooxda Real Madrid. Bianconeri Juventus ayaa haddii ay raacdo rabitaanka CR7 ama Cristiano Ronaldo aan keli ku noqon doonin xiisaha loo muujinayo kabtan Sergio Ramos dilaaga difaaca ee Real Madrid, balse sidoo kale kooxaha Paris Saint-Germain, Manchester United iyo Liverpool ayaa la sheegayaa in ay aad u doonayaan inay soo gacan geliyaan difaacan muhiimka ah haddii uu isaga baxo kooxda Real Madrid. Sergio Ramos ayaa ka mid ah xidigaha ugu muhiimsanaa 10 sano ee ugu dambeysay garoonka Santiago Bernabeu isagoo kooxda kabtanka uu yahay ku hogaamiyay guulo waaweyn. Tababaraha kooxda Paris Saint-Germain ee Thomas Tuchel ayaa maanta qalinka ugu duugay kooxdiisa heshiis cusub oo ku eg ilaa 2021. Paris Saint-Germain ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay heshiiska u kordhisay macalinka kooxdeeda ee Thomas Tuchel kaasoo gaaraya ilaa 2021. Tuchel ayaa qabtay kooxda PSG xagaagii 2018 kadib markii uu shaqada ka bedelay macalinka haatan kooxda Arsenal layliya ee Unai Emery. Inkastoo ay kooxda Paris Saint-Germain ku soo hartay wareegga 16 Champions League kadib markii ay guuldarro xanuun badan kala kulantay kooxda Manchester United, haddana waxa ay ku guuleysteen horyaalka Faransiiska sida caadiga ahayd maadaama ilaa haatan la leeyahay koox kula dagaalantay horyaalkaasi. Waxay u muuqataa in markaa nidaamka haatan ee Paris Saint-Germain uu ku xirnaan doono inta markaa badan xoojinta kooxda, sidaa darteedna waxay heshiis sanad kale ah oo ka saxiixeen macalinkooda kooxda Thomas Tuchel. Jose Mourinho ayaa ahaa macalinka sida xooggan loola xiriirinayay inuu noqon doono beddelka buuxa ee Thomas Tuchel ee kooxda PSG haddii ay dhacdeen macalinka reer Germany shaqada laga ciriyo, laakiin xaaladda way isbedeshay waxaana haatan ay u badan tahay in macalinku uu haatan ku sii baaqi ahaan doono kooxda. Labada macallin ee kala ah Jose Mourinho iyo Antonio Conte ayaa haatan la xiriirinaya shaqada macalinimo ee kooxda Inter Milan oo la leeyahay kooxda aad bay ugu dhawaanaysaa inay la soo saxiixato macallin Antonio Conte inkastoo aan meesha laga saarin Jose Mourinho. Majalada AS ee dalka Spain ka soo baxda ayaa warbixinta maanta ay daabacday ku sheegtay in Sergio Ramos uu dhibaato badan ku abuuri karo kooxda Real Madrid haddii uu go'aansado inuu ka tago. AS ayaa ku waramaysa inay u badan tahay Ramos inuu kooxda ka baxo maadaama khilaaf uu soo kala dhexgalay isaga iyo madaxweynaha kooxda Florentino Perez oo ay markaa isafgaareen kulankii Ajax markii kooxda Real laga soo reebay Champions League. Real Madrid ayaa ku qasbanaan doonta baa la leeyahay inay qarashaad xooggan bixiso si ay u iibiso ciyaaryahano bedel wanaagsan u noqon kara kabtanka kooxda ee Sergio Ramos haddii uu go'aansado inuu xagaagan iskaga baxo kooxda. Los Blancos ayaa fahansan in qiimaha ay ku iibin doonaan Sergio Ramos uusan noqon doonin mid aad u sarreeya maadaama uu yahay ciyaaryahan da' waxayna kooxda haatan u baahan tahay in ay beddelkiisa ay ka dhigto xidiga da'yar ah oo ay markaa la soo wareegaan. Haddaba wargeyska ee dalka Spain ayaa waxa uu soo xiganayaa warar sheegaya in ay kooxdu ku howlan tahay 4 ciyaaryahan oo qalbada difaaca dhexe ee Sergio Ramos bedeli kara kuwaasoo ay ka mid yihiin Virgil van Dijk difaaca kooxda Liverpool, Claudio Koulibaly ciyaaryahanka difaaca ee Napoli,
Magis Delight daayarka haatan lagu wado inuu isaga baxo kooxda Ajax marka xilli ciyaareedku soo xirmo, iyo Jesse Gimenez difaaca Atletico Madrid. waxaana si dhow loola xiriirinayaa kooxda Real Madrid Virgil van Dijk iyo Claudio Koulibaly iyo sidoo kale Magis Delight, kuwaasoo la leeyahay waxaa macquul ah in ay ka dhigaan beddelka buuxa ee Sergio Ramos. heshiiska oo Eden Hazard ugu biirayo kooxda Real Madrid ayaa la leeyahay waqti kama dambaysa ayaa loo qabtay, iyadoo haatan uu muran ka taagan yahay qarashaadka ay Real kula wareegayso Eden Hazard. waryahanka Chelsea Eden Hazard ayaa doonaya in usbuuca kadib ciyaarista koobka finalka Europe League uu dhammaystiro ku biiritaankiisa kooxda Real Madrid, balse waxaa la soo warinayaa in weli labada kooxood ay isku khilaafsan yihiin lacagaha xiddigan looga iibin karo Real Madrid. xiddiga reer Belgium ayaa doonaya in 4 bisha June maalmo kadib finalka Europe League xal loo helo mustaqbalkiisa Los Blancos, waxaana la rajaynayaa in Real ay soo afjarto raacdadii muddada dheer ay ku qaadatay inay ku soo iibiso xiddigii hore ee Lille iyo kooxda haatan Chelsea ee Eden Hazard. si kastaba labadan kooxood ayaa farqi 26 milyan oo pound ah u dhaxeeya, waxaana laga hadlayaa qiimahani 28 jirka Chelsea ee Eden Hazard oo ay haatan ku dalbatay Real 86 milyan oo pound, halka ay doonayso iyadoo Chelsea 112 milyan oo pound in ay markaa Real bixiso. Eden Hazard ayaa doonaya inuu qarankiisa aado isagoo oo laga warqabo mustaqbalkiisa, waxayna 8 June la ciyaari doonaa ciyaaraha markaasi qaramada oo ma kala dheeli doono qarankiisa kooxda Kazakhstan, halka 11 June uu la balansan yihiin qaranka waddanka Scotland. labada kulanba waxa ay ka tirsan yihiin isreebreebka koobka qaramada ee Europe 2020 la ciyaari doono. tababarihii hore ee Blueska Jose Mourinho ayaa aaminsan in heshiiska uu dhici doono isla markaana Eden Hazard uu ku biiri doono kooxda Real Madrid, taana ay haatan aad u dhowdahay. difaaca Isbaanishka ee kooxda Chelsea ee Marcos Alonso ayaa waxaa markaasi la leeyahay xilli ciyaareedku marka uu soo xirmo waxa ay u badan tahay inuu isaga tago kooxda Chelsea oo uu ku biiro kooxo kale oo doondoonaya. daafaca Isbaanishka ee kooxda Chelsea ee Marcos Alonso oo haatan 28 sano jir ah ayaa waxa uu ka fiirsanayaa inuu ka tago Stamford Bridge, inkastoo qandaraas 5 sanadood ah uu saxiixay haatan bishii Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay. majalada Evening Standard ayaa ku waramaysay in daafaca Isbaanishka ee garabka bidix ee kooxda Chelsea ay haatan aad u danaynayso kooxda Real Madrid oo mar hore uga tirsanaa, isla markaana ay doonayaan in ay beddel uga dhigaan Marcelo oo haatan la leeyahay da'da ayaa ka daba timid. waa hagaag daawadayaal, wararka habeenimo ee xogta ciyaaraha caawa inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. daawadee fadlan haddii aad ku cusub tahay page-kan subscribe dheh, fadlan comment-na ka bixi akhbaaraadkii aan kusoo gudbinay. mahadsanidin.